hoose ee dalka iyo weliba kuwa sare ee dalka. Macadka waxaa lagu bartaa luqadda Ingiriiska, Kiswahiliga, weliba dadka la baraya qaabka wax loo qoro iyo weliba akhrinta ee luqadda Kiswahiliga iyo Ingiriiska, xisaabta iyo waxyaabaha kale ee asaaska. Intaa kadibna qofku waxaa fursad u helayaa inaad la fadhiisto imtixaanaadka dugsiyada hoose, aadna sameeyo imtixaanaadka shahaadiga ee sanadlaha ee dalka ka qabsooma sanad kasta. Intaa kadibna waxaad fursad u helayaa shakhsi kasta oo macadka kusoo biira in aad helo shahaada tusinaysa inaad soo maray macadkaasi, aadna soo bartay luqadda Ingiriiska iyo Kiswahiliga muddo 1 sano ah. intaa waxay dheereen faahfaahin waxaad kala xiriiri kartiin lambarada shaashada ku qoran iyo weliba cawaanka halkaasi isla markaasina aan ku soo daabacnay.